ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe ee liibaan ee ku yaala magaalada xingalool ayaa lagu soo waramayaa in halkaasi loogu qabtay tartan aqooneed. waxaa ka qayb galay tartankaasi oo warkan ka soo diray xingalool wariye maxamed saalax. munaasabadan ahayd mid si arsara loo soo agaasimay isla markaasna lagu tartansiinayay ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe liibaan. waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer degmo, heer gobol, arday, barayaal iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada xingalool ee gobolka sanaag. sheekh maxamed axmed oo kamid ah barayaasha wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe liibaan ayaa ka warbixiyay ujeedka tartankan. waxaan halkan ka soo jeedinaynaa innagoo xafladan ugu talagalay kitaabkii aan soo wadnay bisha iyo barka xafladiisii qalinjabinta oo ahaa kitaabkaas oo ahaa naxwada loo yaqaano cimriyaqi oo ah uu leeyahay sheekh sharafudiin alcimriiqi kaasoo ka koobnaa 250 bayd. ardadaas ka qalinjabisay ee hortiina fadhida ayaa insha Allah ku tartami doona. waxaa markaan ka hadlayaa ahamiyadda luqadda carabiga ay u leedahay quraanka kariimka. hadafkeenuna uu yahay quraanka kariimka inaynu xoojino. sidoo kale intii lagu guda jiray munaasabadan ayaa waxaa hadal ka jeediyay maamulaha dugsiga hoose dhexe liibaan ustaad mursa saciid cali, taliyaha booliska ee gobolka sanaag gaashaanle sare axmed saciid gagaroor iyo nabadoon cabdiwadax, waxaana ay bogaadiyeen ardada tan maanta tartamaysa. kitaabka cimriidiga waa alfiyaha rubci wey ninka maanta bartay oo tafsiirkiisana bartay jaamacad uma baahna cilmi luqa carabiya dhinaca naxwaha uma baahna. insha Allah waxaan ku xijin doonaa kitaabka raxdiyaha la yiraahdo ee dhaxalka ah baan u xifdin doonaa hadii Allah idmo. kitaabka raxdiyaha la yiraahdo baan xifdin doonaa. waxaan rabnaa mutuunta in ardayda soo xifdino hadartaan cilmi aan akhlaaq lahayni marf wax faa'iido leeyahay ma jirto. ka shajar bila thamar wa til oranay العلم بلا أدب كشجر بلا ثمر. runtii macallimiinta anigu waan iskuulka waan u warhayaa ardayda ay dhigataan aad ba akhlaaqdu maaragtay ay low profile u tahay. adabku maaragtay in awoodda la saaro waa macallimiinta ku boorinaya in akhlaaqda la dhiso oo adabta maaragtay tarbiyadda ardayda lagu daro xoog la saaro. cilmiguna manfac ma leh. shakawtu suu cilm maxay suu xifdi حتى وحنا حفتي مثلا دي أسيان بضنتها يا أخلاق لها إنه مارتي وفشل ياتها. روحنا بقول وأولادي اللي واقف فيه وهو على وش الشرعي وعلى وش الساعة سير له هو جاي قوتك هي مرشوده. وعلى ذي أولاد دوم هالسنين المعلمين في شباب أبوي inoogu yeedhay si aynu u ogaano heerka ay marayaan waxay soo bareen. aad u mahadsan yihiin. dhammaadkii munaasabadda ayaa waxaa abaalmarino kala duwan la guddoonsiiyey ardadii kaalmaha hore ka galay tartankan loo qabtay ardada dhigata dugsiga hoose dhexe ee liibaan. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay oo baratan noocan ah loo qabto ardada dhigata dugsiga hoose dhexe ee liibaan oo ka mid ah dugsiyada ugu faaca weyn ee ku yaala magaalada xingalo. maxamed saalax TV-ga caalamiga Somali Channel magaalada xingalo.